فيديو يدا أما هب كان هذا سماه يسوع عجلة مقالكي ما حيكون هراك جدوين بدران للفرحة waxay kaga duwan yihiin waxay la kulmeen technology-ga casriga waqtigan casriga dhalinyartii ay wax barteen ay fahmeen habka casriga ee wax loo sameeyo ama wax loo duubo marka taabay la jaan qaadaysaa waa taa daraadeed waxay u tahay different marka ilaa imika wax muuqaalan waxa soo saartay labada ayna aragnay labadan iyo albumko dhan wuxuu noqonayaa muuqaal iyo dhageysi labada gartay marka dadweynaha marka aad u soo bandhigayso heesahaaga intii hore sidoo ugu soo bandhigi jirtay xafladaha aad ka qayb gashaa ma aroosyada aad ka heestaa ma kuma badni xafladaha iyo aroosyada waayo waxa weeyaan de waqti badan buu u baahan yahay fanku aniguna badiya xooga waxaan saaraa shaqada gartay laakiin de London xaflada ka dhacayo aad ka qayb gashay way jireen Soomaaliya si fiican waan ka qayb galay marka waxa weeyaan waxa kamid ahayd 2006kii Mustafa Kiko Mustafa Maxamed uu sameeyay oo Somaliland dabaldegaygi uu yiri qaabkaaga wuxuu eegyahay madaxweyne waa inaad madaxweyne noqoto marka way jirtaa iyadoo internetka ku jirta oo ka cajaladaha ay ku jirto CD iyadoo DVD ah xafladii sanadkana Djibouti madax banaanideedana waxaan ka warhayaa in qaban qaabadeeda baad adigu lahayd inaan anu lahaa waayo waxaan arkay dhalinyar reer Djibouti oo dadaalaysa oo hawshii wada aniguna qaybteedan ka galay marka waxaan ana kolka marka iri ana mas'uuliyadii qaadaya oo wax walba oo Spain oo lacag ku baxaysa ana bixinay gartay xafladaha sidaas oo kala inaanay qayb kaliya Soomaalida ama reer Djibouti ama reer Soomaaliya ama Somaliland inaanay ku koobnaanin munaasabadahan la qabtaa ee dadkii ay ka wada qayb galaan oo fantasiyaha iyo farxadda ay wada galaan sidaba kugu muuqata waayidii hore taasi ma jirin Soomaaliya ma jirin insha Allah waxaan rajaynaynaa inay hadii waa loo bislaanayaa fanaaniintu inay isfahmaan oo ay si mid ahata hadii Djibouti noqoto iyo hadii Soomaaliya noqotoba ay mar si wada jir ay u sameeyaan insha Allah waxaan salaamayaa horta Universal oo dhan oo engineerka ugu horeeya engineer Ahmed marka xiga waxaan aad iyo aad u salaamayaa marwadayda qaaliga aan jecelahay Raxiin Aadan Barre iyo gabadhayda Nimco gabadhayda Istaahil gabadhayda Muna iyo ehelkayga dhamaantii hooyadayda labaad aad iyo aad baan wada salaamayaa aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan aan asxaabtayda soo koobi karayn waxaan salaamayaa ummadda reer Djibouti meel kasta oo joogto gudaha iyo dibadaba madaxweynahayaga Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa ayaan aad iyo aad u salaamayaa dhamaantiin dadka reer Djibouti meel kasta oo joogtiin hambaliyo iyo tahniyad baan soo dirayaa sanad guuro waxaan baan niri insha Allah Soomaaliya dhan meel kasta oo joogtana waan soo salaamayaa Soomaaliya nabad insha Allah ayaan rajaynayaa insha Allah marka sida iyo nabadgeliyo فرحان موسى عجاء حدك آدي أدبض ما هتصنتك